war degdeg ah daawadayaal dagaal xoogan ayaa ka socdo duleedka degmada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay waxaan kula wadaagi doonaa dagaalkan iyo u dhaxeeya ciidankii dawladda ee ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo ayaa waxa ay weerar ku qaadeen ciidamadii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xabsan Laftagreen kuwaas oo ku sugan banaanka magaalada Baydhabo labada dhinac waxa ay markaan sheegeen inay kala qabsadeen maxaabiis iyo sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan iyagoo dagaalkan la soo warinayo in la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waxaan kula wadaagi doonaa markaasi khasaaraha rasmiga iyo sidoo kale markaasi wax walba oo aad ugu baahan tahay dagaalkaasi halkaasi ka socda kaasi oo dhaxeeya ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen iyo sidoo kale ciidankii dawladda waxaan kula wadaagi doonaa markaasi goobaha sida gaarka oo markaan kaga socdo dagaalka haatan ka socdo duleedka degmada markaasi Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay وسادي أنت مركز كوجو رسالة صوب قطفلا يوتيوب كنا سبسكرايب صار مقال لايك صار سينشر جراي وحي فكر كأنا أنا قيب توصي فعلى نقرب وتكون مع صنت هاي دعوة شذا يسوع كل جانقات كورر كنا مهسن الدعوة ده إنه كوبلونه دجال مركاني لا إسكو أديك سنة يو هوك درندوري جودة عن نوعي سكال الدون هي هاتن واحد وكسعة مركزي دولات كمجالة بيدو حرمتها قبل كاسباي دجال كان يا لجوسة ورمي يا مركزي إن أي قادين ciidankii dawladda ee markaasi ku sugnaa magaalada Baydhabo iyagoo markaani weerar ku qaaday ciidankii taabacsanaa madaxweynihii markaasi dawladdu ay xoog ugu wareegtay magaalada Baydhabo kaasi oo haatan ku sugan gudaha markaasi magaalada Nairobi caasimadda dalkaasi Kenya ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen oo maalmihii ugu dambeeyay markaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan ka waday duleedka magaalada Baydhabo ayaa lagu soo waramayaa in maalmihii ugu dambeeyay markaasi howlgallo ballaaran ay ka wadeen markaasi magaalooyinka u dhow ama tuulooyinka u dhow magaalada Baydhabo markii ay howlgalladaasu maqleen ama ay dareemeen ciidankii dawladda ee markaasi ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo ayaa markaasi waxa ay markaasi ka xumaadeen in ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Laftagreen ee ku sugnaa hoodka magaalada Baydhabo in ay markaani bilaabeen in howlgallo ama xaqiijin ay ka wadaan duleedka magaalada Baydhabo ciidankii markaasi ku sugnaa dawladdu ayaa ka ambabaxay gudaha degmada markaasi Baydhabo iyagoo markaasi ku wajahan markaasi banaanka hore ee degmada markaasi Baydhabo waxa ay markaasi la kulmeen ciidankii Cabdicasiis Maxamed Laftagreen oo markaasi taabacsanaa iyagoo halkaasi markaasi roonda ka wada markii ay iska hor yimaadeen labada dhinac halkaasna waxa ka qarxay markaasi dagaal xoogan oo markaasi u dhaxeeya labada dhinac waxaana la isku adeegsanaya markaasi hubka noocyadiisa kala duwan iyagoo markaani dagaalkan uu noqonayo markaasi dagaalkii ugu khasaaraha badnaa oo markaasi ka dhaca duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya howlgalka markaani ay wadeen ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen waxa uu hogaaminayay markaasi wasiirkii hore ee markaasi Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir iyo sidoo kale afhayeenkii hore ee markaasi Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen waxa ayna sheegeen in markaasi dhawaan markaasi ay gudaha u gali doonaan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidankii dawladda ayaana halkaasi ka hortagay ciidankii markaasi Laftagreen halkaasna waxa ka qarxay dagaal culus iyadoo la soo warinayo in markaasi labada dhinacba markaasi khasaarihii ugu badnaa oo markaasi ka soo gaaray dagaalka haatan ka socdo gudaha degmada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ciidankii dawladdu waxay sheegteen in ay qabteen ciidan maleeshiyaad oo markaasi taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen halka kuwii mucaaradka ee markaasi joogay banaanka magaalada Baydhabo ay iyaguna ku soo waramayaan markaani inay haatan gacanta ku dhigeen ciidan markaasi isugu jira markaasi daraawishta Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ciidan military ah waxaan kula wadaagi doonaa markaani labada guulo ay kala sheegteen ciidankii dawladda iyo sidoo kale ciidankii markaasi taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagreen haddii aynu ku hormarno markaasi ciidanka dawladda ee hogaaminayo markaasi taliyaha markaasi qaybta markaasi guutada sagaalaad ee Cabdul Isaaq ninka lagu magacaabo iyo qaybta sideedaad waxay soo bandhigeen hal askari oo daraawiisha sida markaasi xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan helayno ay warinayaan askariyaana ayaa lagu soo waramayaa in maalmihii ugu dambeeyay markaasi uu ku howlanaa markaasi in uu isku soo dhiibo ciidanka dawladda ee markaasi ku sugan gudaha degmada markaasi Baydhabo ee xarunta markaasi kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya askarigan markaasi ay soo bandhigeen xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan helayno iyo sidoo kale sida ay noo xaqiijiyeen markaasi saraakiil sarsare oo ka tirsan markaasi ciidanka dawladda ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ayaa lagu soo waramayaa in askarigani oo hore ugu tirsanaa ciidankii daraawiishta mar horeyna ama isbuucii horeyna isku soo dhiibay ciidanka dawladda soo bindhigtaankiisii waxaa ka soo hormaray markaasi duulaanka marka ay maanta qaadeen
ciidanka markaasi dowladda kuwaasi oo lagu qaadayo ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen. ciidankan ayaa la rabay in markaasi loo soo bandhigo markaasi bulshada Soomaaliyeed soo bandhigitaankiisiina waxa ku soo aaday markaasi dagaalka markaani haatan dhaxmaray ciidankii markaasi taabacsanaa Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo sidoo kale ciidankii dowladda. askarigaana ayaa markaasi ciidanka dowladdu markaasi waxay u wateen in uu soo tuso ciidankii daraawiishta halka ay ku sugan yihiin iyo sidoo kale goobaha markaasi fariisimaha ay ku leeyihiin si markaasi halkaasi ciidanka dowladdu ay howlgalkooda markaasi ugu guuleystaan. dhinaca kalena haddii aynu eegno markaasi ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen ee markaasi uu hogaaminayay wasiirkii amniga Koonfur Galbeed Xasan Cabdulqaadir ayaa iyaguna markaasi waxay sheegteen in ay cagta mariyeen maleeshiyaadkii markaasi salbalaarka oo markaan ay sheegeen in markaasi duulaan ay ku soo qaadeen ciidankii markaasi taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen kuwaasi oo ku sugnaa markaasi duleedka markaasi magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. qasaaraha markaasi waa uu fara badan yahay labada dhinacna waxaa soo gaaray markaasi dhimasho iyo dhaawac sida markaasi xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan helayno ilaa iyo haatan markaasi si rasmi ah wali looma xaqiijinin qasaaraha markaasi dagaalkaasi ka dhacay maadaama wali hardanka iyo sidoo kale dhawaqa jugta culus markaasi laga maqlayo duleedka magaalada Baydhabo. ciidanka dowladda ayaana markaan waxay helayaan gurmadyo xoogan oo markaasi kaga imaanaya gudaha magaalada Baydhabo sida xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan helayno waxa la soo warinayaa in dagaalka haatan ay ku soo biireen markaasi ciidanka markaasi lagu magacaabo markaasi booliis militara iyo sidoo kale markaasi haramcad oo markaasi ciidanka markaasi sida gaarka u tababaran oo markaasi maalmihii ugu dambeeyay markaasi ku sugnaa gudaha degmada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ciidankii Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareenna waxa lagu soo waramayaa in markaasi xeelad dagaal markaasi ay ugu baxeen markaasi goobahoodii markaasi ama fariisimuhu ay ku lahaayeen duleedka magaalada Baydhabo ee markaasi xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ciidanka dowladdu waxa ay markaasi soo bandhigeen goobihii markaasi ay ka baxeen ciidankii markaasi taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen iyagoo markaani howlgalkani waxa ay ku sheegeen in guud ahaanba ay cagta mariyeen markaasi ciidankii markaasi ku sugnaa markaasi duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. halka markaana wasiirkii hore ee markaasi amniga Koonfur Galbeedna Xasan Cabdulqaadir oo isaguna haatan ku soo waramayo in markaasi xeelad dagaal ay dib u gurasho ugu sameeyeen maadaama ciidanka markaasi Cabdicasiis Laftagareen taabacsanaa ay iyagu markaasi ay ku jireen markaasi roondo markaasi oo markaasi amni xaqiijin oo ay ka sameeyeen duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay. sidoo kalena xogaha iyo sidoo kale macluumaadka aan ka helayno dagaalka ayaana lagu soo waramayaa in markaasi qasaarihii ugu badnaa oo markaasi soo gaaray ciidankii markaasi taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen maadaama markaasi duulaanka markaasi lagu qaaday iyaga markaasi waxaana lagu soo waramayaa in haatan markaasi dhaawacyadii ugu cuslaa iyo sidoo kale markaasi dhimashadii ugu badnaa oo dagaalkaasi ka dhasha ay haatan soo gaareen markaasi ciidankii taabacsanaa Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen. ma ahan markii ugu horeysay ciidan taabacsan madaxweynihii hore ee markaasi Koonfur Galbeed iyo sidoo kale kuwa dowladda oo markaasi dagaal ku dhex qarxo iyagoo markaasi ku dagaalamaya duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta markaasi ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. magaalada Baydhabo haatan waxay noqonaysaa markaasi xaaladda ayaa ku sii xumaanayso shacabka ayaana dareemaya markaasi walaac xoogan kadib markii halkaasi markasta laga filan karo markaasi dagaal xoogan oo markaasi halkaasi ku dhex mari kara ciidan mucaarad ah oo markaasi ka soo horjeedo hab xukunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale Sheekh Aadan Madoobe oo haatan loo doortay markaasi hogaamiyaha markaasi dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 5 sano ee soo aadan. Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen maalinta ka sii dambeysana waxa uu hanjabaadyo dhowr ah ka soo diraya gudaha magaalada Nairobi ee caasimada markaasi dalkaasi ee Kenya. Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen waxa uu mar badan sheegay inuu markaasi dib ugu soo laaban doono gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. ciidankan taabacsan Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen iyaguna maalinta ka sii dambayso waxa ay markaasi helayaan gurmadyo markaasi ama ka soo goosanaya ciidanka dowladda ama kuwii daraawiishta ee markaasi Koonfur Galbeed ee ku sugan markaasi gudaha markaasi magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wixii faahfaahin ama markaasi macluumaad dheeraad ah oo ka soo baxo dagaalkan ka socda duleedka magaalada Baydhabo daawadayaal waxaad ku daawan doontaan wararkeena kale iyo sidoo kale barnaamijyadeena xiga. balse haddii aad soo gaartay dhamaadka qodobada waxaan mar labaad ka codsanayaa inaad YouTube-keena subscribe saarto oo aad gambaleel ka furato muuqaalkana aad like saarto like tamel leeyahay geersiisa mahsanid daawada.